بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبرون ويدينتن What is a job analysis? Job analysis waxaa lagu qeexi karaa in ay tahay habraac lagu go'aaminayo nooca shaqada, waajibaadka, mas'uuliyadaha la qabanayo si loo go'aamiyo shahaadooyinka, aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay qofka qabanaya shaqo cayiman. markana aan isla aragno faa'iidada ku jirta in la diyaariyo dokumentiga job analysis. waxaan u kala qaadi karnaa faa'iido ugu jirta shirkadda iyo faa'iido ugu jirta shaqaalaha. haddaan ku hormarno faa'iidada shirkadda ay ka helayso in la sameeyo job analysis, waxaa ka mid ah in shirkadda ay u qaadato ama ay shaqaalaysiiso qofka saxda ah loona dhiibo booska saxda ah. sidoo kale waxa ay ka gacan siinaysaa shirkadda iyadoo la tixraacayo job analysis in shaqaalaha loo qabto ama la kordhiyo aqoontooda oo tababar loo sameeyo. sidoo kale ay noqoto tixraac marka la qiimeynayo waxqabadka shaqaalaha. sidoo kale waxaa lagu qiimeeyaa magdhowga la siinayo shaqaalaha sida mushaarka iyo gunooyinka. markana aan isla aragno faa'iidada ugu jirta in la sameeyo dokumentiga job analysis marka ay imaato shaqaalaha. waxaa ka mid ah inay helaan ama faham buuxa ay ka helaan waa maxay shaqada laga rabo iyo sida ay u qabanayaan shaqadooda ayagoo haysta tixraacan. dokumentiga job analysis waxaa loo qaybiyaa labo, kuwaasoo ah job description iyo job specification. haddaan ku hormarno qeexidda job description, waxaan dhihi karnaa waa qaybta loogu talagalay inay sawir buuxa ka bixiso nuuca shaqada, sida meesha lagu shaqaynayo, xilliga shaqada la qabanayo, mushaarka iyo wixii la halmaala. si kale haddaan u dhigno, waa meesha laga helayo xog buuxda ee la xiriirta shaqada ayaa loo yaqaanaa job description. markana aan isla fahanno qaybta labaad ee job analysis, waxaa loo yaqaanaa job specifications. waxaana lagu qeexi karaa inay tahay qaybta caddaysa xogta la xiriirta shaqaalaha la rabo inuu shaqada qabto, sida waa maxay aqoonta la rabo inuu lahaado qofka, sidoo kale khibradda, xirfadda laga rabo, aqoonta la rabo inuu qofkaas lahaado waa maxay. haddaan si kale u dhigno, waa meesha laga helayo xog waliba oo la xiriirta shaqsiyadda ama qofka shaqada qabanaya ayaa waxaa loo yaqaanaa job specifications. haddaan koobno, job description waxa ay qeexdaa shaqada la qabanayo. job specifications waxa ay qeexdaa qofka shaqada qabanaya. xog dheeraada oo ku saabsan shaqada iyo shaqaalaha fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin. waa inoo markale haddii rabeedmo.